بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. halkani waa kanaalkeenii afqalaada aqoonta miyaa aynu kaga soo warbixinaynay kaga soo aynu dhigaynay cilmiga barashada econometricska cilmiga guud ahaan econometricskuna waa cilmi la xiriira isku dhafka cilmiyo badan oo sida ah cilmiga dhaqaalaha ama sida economic theory, cilmiga xisaabaadka sida calculuska iyo wixii la xiriira, iyo cilmiga tirakoobka ama statisticada. intaasoo isku dhafan ayuu cilmiga econometrics ka kooban yahay. waana cilmi aada muhiim u ah, inta badan ay isticmaalaan dowladaha iyo hay-adaha cilmi baadhista, akademiyada, jaamacadaha, ardayda researchka wada ama kuwa tesiska qoraya cilmigan research methodologyga sameynaya. aada iyo aada bay muhiim u tahay cilmigan maanta aada loo isticmaalaa applicationadiisa. marka waxaynu maanta eegeynaa, maadaama aynu kilibadii hore kusoo tilmaanay bilowga cilmiga econometricska wuxuu yahay iyo sida loo adeegsado, waxaynu hadda eegeynaa dhinaca xisaabaadka ayaynu eegeynaa oo aynu diiradda saaraynaa, oo aada iyo aada muhiim u ah, oo ardaygu marka hore basicgiis uu aada ugu wanaagsan xagga statisticada ama tirakoobka iyo mathka guud ahaanba. marka waxaynu eegeynaa haddii ilaahayna gararsiiyo dhinacan xisaabaadka iyo sida loo dhiraandhiriyo. marka u horeysay waxaynu ka hadalnay laba barometer oo aada muhiim u ah cilmiga econometricska, oo aynu soo qaadanay. waxaynu soo qaadanay y waxay la mid tahay beta hat 0 lagu daray beta hat 1 xi. waxaynu soo qaadanaya mata beta 1 waxaynu tilmaanay beta 1 hat inuu la mid ahayd sigma. calaamadaas waa sigma. afka iyaga haddaan ku khaldamo summa aan idhaahdo waa summa, laakiin sigma af ingiriisi lagu ihahda, af soomaalina waa wadar. waa wadarta guud ee y laga jaray y mean lagu dhiftay xi laga jaray x mean loo qeybiyey sigma, ama wadarta guud ee xi laga jaray x mean ee laba jibaaran squared. intaas marka kan hore waa numerator, waa inta sare, denominatorkuna waa inta hoose. marka waxaynu dooneynaa inaynu dhigdhigno bal xisaabta. marka mathematically aynu eegno, calculusna waynoo dambeyn doonta insha allah. marka beta hat 1 haddii aynu soo qaadano summa sigma y laga jaray y mean lagu dhiftay xi minus x mean, intaa ayaynu ka shaqeyneynaa, waa dhiraandhirinaynaa. waxaynu sameyneynaa inaynu isku dhifano y marna kan ku dhifano marna kaa ku dhifano. waxay la mid tahay intaasi sigma y xi lagu dhifto laga jaray y lagu dhiftay x mean, y lagu dhiftay x mean minuskaas soo qaadanaya y minus y mean lagu dhiftay xi, y mean lagu dhiftay xi, y mean lagu dhiftay x mean. means iyo means marka laisku dhifto waa plus y mean lagu dhiftay x mean. inta mar labaad waxaynu sameyneynaa sigmadan ayaynu ku dhifanaynaa mid kasta si aynu isula socono mar kasta insha allah. waxaynu sameyneynaa marka sigma ayaynu ku dhifanay ayaa la isku dhifay y xi minus sigma y x mean minus sigma y mean xi lagu daray sigma y mean x mean. intaa marka aynu halkaa marayno maynana hadda waxaan sameyneynaa haddii la idhaahdo
inaynu y I waa variable baa la yihahdaa, x I-na waa variable, y I waa variable, x mean waa constant, y I meanna waa constant, x I waa variable, kana y mean waa constant, kana waa constant. Constant waa wax taagan, variablena wax numbers fara badan leh, one number x1 x2 x3 saas oo kale. Marka waxaynu sameyneynaa constantku mar walba wuxuu ka horeynayaa variableka, kana xaggan usoo maraya, marka waynu habeyneynaa, habeyntii ayaynu gelaynaa. Marka la socda, marka sigma y I x I iyago isma bedelayaan, waxaynu soo hormarinaynaa x meanka, x mean waxaynu ku dhufanaynaa sigma y I, tanna y meankaynu soo hormarinaynaa, waxaynu ku dhufanaynaa summa x I, oo lagu darayaa waa labadu waa constant, wadar baana ka horeysa, marka wadartii macnaheedu waa number, lama wadareyn karo. X mean waa wax taagan, y-na waa wax constant ah, marka n baynu soo qaadanaynaa, n y mean x mean. halkaan markaan marayno ayaa waxaa jira haddii na x mean, qaacido yar baa jirto, x mean waxay la mid tahay 1/n lagu dhiftay summa x I, marka nx mean, marka nx lagu dhifto waxay la mid tahay summa x I. halkii summa x ahba nx mean baan ku bedelaynaa, ama y mean, haddii kale haddii y meanten waxaan ku bedelnaa summa y I. intaas waxay la mid tahay summa y I x I minus, maadaama halkan ku bedelay oo nx waxay noqonaysaa marka n waa y I, n y mean x mean, because sigma y I baa la mid tahay ny iyo x lagu dhiftay x mean. iminkana waa n y mean x mean, intana nx mean wey lagu daray n y mean x mean. sidaa markay tahay waxaa la isu jarayaa labadaas, waxay noo soo haray sigma y I x I minus n y mean x mean. intaasi waxay la mid tahay sigma y I minus y mean lagu dhiftay x I minus x mean. si kale haddaynu nidhaahno y I minus y mean lagu dhiftay x I, iyana waxay la mid tahay intan, waynu eegaynaa summa sigma y I isku dhifo, iyadana y I ku dhifo, marna kan ku dhifo, marna kan ku dhifo, y I lagu dhiftay x I minus y mean lagu dhiftay x I. sigmadan mid walba geli, sigma lagu dhiftay y I x I minus sigma y mean x I, summa y I x I minus y soo horeysiyo oo constant summa x I, sigma y I x I minus n x mean y mean, ama n
y min x min haddii aad y iyo x ada kala horsiso waa isla mid. tanna intana waxay la mid tahay oo la mid ah sigma y I minus y min lagu dhiftay x I minus x min. labada dhinac marna intan baad kaga shaqeyn kartaa ayay intaasi la mid tahay, marna iyadoo laisku dhiftay iyadoo laisku wada dhiftay labada dhinacdaa badanba waad kaga shaqeyn kartaa. marka waxay noo soo haray denominatorkan bay noo soo haray oo ah summa x I minus x min squared. intaas waxay la mid tahay laba jeer oo laisku dhiftay sigma x I minus x min squared lagu dhiftay x I minus x min laba jeer oo laisku dhiftay. waxay la mid tahay oo kale x I minus x min lagu dhiftay x I. intaasna waa la mid sidii aynu markii horeba sidaan aynu soo saarnay kale waa la mid. marka haddii aynu kor kaga shaqeyno halkan intan aynu idhaahno summa sigma x I minus x min lagu dhiftay x I marba isku dhufo marlakan ku dhufo. intaasi waxay la mid tahay sigma x I lagu dhiftay x I minus x min lagu dhiftay x I. sigma x I marka lagu dhifto x I waa x I squared minus x min x I waxay noqonaysaa summa x I because waa variable kana waa constant variable. summa x I minus n x min bay noqonaysaa. marka n x min iyo x min marka lagu dhigo waa x min squared oo ah number waa n x min squared ayay noqonaysaa because waa marka intaas iyadana la mid noqonaysaa. okay sidaa daraaddeed beta hat one waxay la mid tahay sigma y I minus y min lagu dhiftay x I minus x min oo loo qeybiyey sigma x I minus x min squared. intaasi waxay la mid tahay maanta caddeynay inay intaasi oo kale la mid tahay summa sigma y I x I minus n x min y min loo qeybiyey sigma x I squared minus n x min squared ay marna intaasay intaa hore la mid tahay marna intaasay la mid tahay. labada waxay ku xiran tahay kolba daatada lagu siiyo iyo sida lagu yidhaahdo uga shaqeeya. labada qaacidadba wayna gartaa laakiin maanta waxaynu baranay sida loo birandiriyo. haddii aan idhaahno y sigma y I lagu dhiftay x I laga sharay n x min lagu dhiftay y min caddee inay intan sare la mid tahay. marka waa in la dhiiriiriyaa qaab xisaab ahaan lagu soo saaro. intaas ayaynu ku joojinaynaa maanta insha allah. marka qeybta labaad ee kale waxaynu ku eegi doonaa haddii la yidhahdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wixii afkaarana igu reeba subscribe qof kasta oo ka faa'iidaysta subscribe ha yidhaahdo. marka khayr buu idin rajeynaya. wassalaamu calaykum.